السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga ama Bollywoodka hada warkii ugu dambeeyay aflaamta Hindiga aanu soo qaadan doona waxa kamid noqon doona macquul ma ahan wala filimada Tollywoodka wala box office-ka Tollywoodka waa la isku hayaa actor-ka weyn ee Mahesh Babu iyo ninka kale actor kale isaguna caanka ah ee Allu Arjun ayaa ishayo labadooda filim baa ku tartamay doona lagu leeyahay box office-ka Tollywoodka sanadka 2020 waxaan ku sheegi doonaa dagaalka ku dhexmari doona filimada labada tartan ku dhexmari doona filimadu ay ku tartami doonaan labada nin Allu Arjun iyo Mahesh Babu oo wax ka tilmaami doona miyaad ogtahay gabadha ugu mushaaraadka badan aflaamta Hindiga wali waxaan soo qaadan doonaa war ay qayb ka yihiin actor-kii caanka ee Dalamdara oo cisbitaal la dhigay iyo waliba Akshay Kumar filimkiisa Sooriya Fanshi iyo wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo kale qayb ka yahay filimka Saif Ali Khan oo la tilmaamayo in laga koobiyay filim Hollywood-ka Mareykanka iyo warar kale waanu ku soo qaadan doonaa maanta wararkeena kan aflaamta Hindiga hada saaxiib channel-ka cusub tahay noo subscribe garay si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee aflaamta Hindiga waayahay wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga baanu soo qaadan doonaa maanta atariishada caanka Deepika Padukone ayaa sheegtay in ninkeeda Ranveer Singh uu yahay saaxiibkeeda rasmiga ah waxay taa ku sheegtay isagu inuu yahay ninka ka dambeeya guulaheeda waliba sidoo kale waxay ku tilmaamtay inuu yahay nin aad ugu faraxsan guulaha ay iyadu gaarayso iyadu waxa la sheegaa in ay Deepika Padukone ay tahay mid kamid ah atriishooyinka ugu dhaqaalaha badan Bollywoodka Hindiya marka filimada la sameeyo waa atriishooyinka dhaqaalaha ugu badan filim ku sameeyo waliba waxa iyadu marka hadda waxa loo arkay inay mid kamid tahay gabdhaha taajiriinta ah ee filimada Hindiya jira atriishooyinka taajiriinta ah filimada Hindiya jilaba loo arkaa Deepika Padukone waxa lagu leeyahay waxay kamid tahay saddexda actor ugu horeeya ama saddexda atriisho ugu horeeya ee dhaqaalaha ugu badan soo xaray iyada iyo Kangana Deepika Padukone Priyanka Chopra waa atriishooyinka ugu dhaqaalaha badan baa lagu leeyahay yaani halka filim ku sameeynaya dhaqaale badan waa atriishooyinka dhaqaalaha ugu badan halkii filim bay ku sameeyay lacag badan weeyaan marka Deepika Padukone waxay ka sheekaysay isbuuca xiriirka kala dhaxeeya ninkeeda Ranveer Singh oo ay mar hore isguursadeen waxay gabadhan waxay gabar uu hore u soo shaqaysaday actor-ka caanka Shahid Kapoor bana la sheegaa inuu yahay gabadhii iyadu qalbiga uu ka soo jiriyay maadaama Shahid Kapoor iyadu xiriir fiican oo jacayl uu ka soo dhaxeeyay ayaa no Shahid Kapoor ma ahan waa midkii Rish Kapoor u dhalay war Shahid Bale waa kii Rish Kapoor u dhalay ee Ranveer Kapoor wayaan ninkii gabadhan qalbiga ka soo xaday ilaa uu ay ku nacday inuu qayaano la yahay oo gabdhaha kale ku boodbooday yaani gabadhu arka iska raacayo shabeelnaagood uu yahay Ranveer bay la soo socon jirtay waxayna ku nacday qayaanada uu ku qayaanayada in uu la sii hasaawi jiray xilli iyadu xiriir la lahaa wuxuu la hasaawi jiray Katrina Kaif waa sababta ay isku dayeen oo ay xiriirkiisa u burburisay hadda waxa qaba ninka kan ee weynka ah ee actor-ka caanka waana taageero weyn oo kooxda Arsenal waana ambassador-ka horyaalka Premier League ee dalka Hindiya Ranveer Singh baa iyadu qabo atooro kale oo weyna waxay sheegtay inuu yahay saaxiibkeeda ugu fiican waxaanay sheegtay sidoo kale inuu yahay ninka ka dambeeya guulaheeda iyo waliba sidoo kale waxay ku tilmaamtay inuu yahay ninkeeda mid aad ugu faraxsan guulaheeda waxa kale ugu muhiimsan iyana aflaamta Hindiga actor-ka caanka ah ee Mahesh Babu iyo sidoo kale actor-ka kale ee Allu Arjun waxay isku hayaan tashinimooyinka Tollywoodka isku hayaan baa lagu leeyahay sanadka 2020 maxaa yeelay box office-ka bay ku tartami doonaan waa sidee loo tartamayaa laba filim baa hal maalin gudaheed soo baxaysa yaa daawanaysa yaa dhaqaalaha u badan soo xareyn doona yaa la jeclaan doona yaa tartan ba meesha ka dhacaya inta badan waxa weeyaan filimada waxay meelaha lagu tartamo waxa kamid ah shineemooyinka lagu tartamaa tartanka ugu weyn wuxuu actoradu dhexmaraa maalinta actorka markuu filim keeno kana uu filim keeno filmadooda hal maalin ay soo wada baxaan yaani hal maalin la siiday iyagoo cusub maalinka waxa lagu tartami doonaa filimkee dhaqaale badan soo xareeyay filimkee dadku ay aad u jeclaysteen filimkee aad loo daawaday filimkee dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay baa lagu tartamaya marka waxa lagu leeyahay labada actor ee khatarta badan ee filimada Tollywoodka xidigaha Tollywoodka la yiraahdo kuwa kan Hindiga dad taqaanaan Bollywood waa kuwa ka Bollywood kuwa kale waa isla wada Hindiyo kuwa Tollywood bay shirkado kala duwan ku yaala Tollywood iyo Bollywood Telugu iyo Tamil iyo waxa oo dhanba waa shirkado badan yihiin Hindiya waana kala qaybo badan tahay marka kuwan waxa weeyaan Mahesh Babu iyo Allu Arjun waxa weeyaan ragga Tollywood ka haysta weeyaan ragga ugu waaweyn weeyaan shineemooyinka Tollywood ku faanaan shirkada Tollywood ka haysta weeyaan marka waxa lagu leeyahay labadu actor waxay ku tartami doonaan sanadka 2020 box office-ka yaani filmadooda ayaa hal maalin soo bixi doona wala waraajiri doona hal maalin baa la sii deyn doona filimada actor-ku aanu aadka ugu dambeeyay Mahesh Babu sidoo kale isagu qudhiisan waa ka dambeeyay Allu Arjun waa nin kale aad u halis badan Mahesh waxa weeyaan asaga Mahesh Babu waa nin afgaaban
moogta horta meesh babu wuxuu ku caansan yahay wuuna afgaaba yahay ma hadal badna wuxuu u muuqdanin qabow laakiin feerka iyo sidoo carada u jiray markuu careysan yahay iyo filimada uu keenayo filimo aadi ma aha Allu Arjun waa nin fantastic ah ka qoslisiinaya dagaalamaya actionista ah amaratigana ku fiican Allu Arjun waa nin kale aad u halis badan labadooda marka filmadooda baa soo bixi doona hal maalin baa lagu leeyahay sanad 2000 soo bixi doonaan oo ku dagaalami doonaan leeyahay shineemooyinka haddaba maanta aktarka caanka Meesh Babu ayaa soo sheergareeyay ambaraha bulshada soo dhigay taageerayaasha tusay kaarta cusub oo filimkiisa soo aadan ee magaciisu yahay Celeru Nekorviro waa film aad loo sugayo oo soo wado aktarka weyn ee Meesh Babu hay waa kayd arkaysaan filimku waxa la arkayaa Meesh Babu oo meel taagan masaarna haysta una muuqda inuu soo diyaarinayo dagaal ninkan dagaalkiisa kala turwa hal mar uu ku qabanayo jigjig buu ka siinaya ordika kan Meesh Babu ninkan marka Meesh oo waxa lagu tusayaa masaartiisa haysta filimkan film oo malayna aniga filimkan Celeru Nekorviro filimku ninkan film uu ka keenay khatar waa adiga Meesh Babu film uu ka keeno oo xuma jira macna ninkan waa wax kala waa ninkan Mr. Meesh marka maanta kaartidiisu soo bandhigay waa ka isagoo masaar wato dagaal u diyaarsan marka filimka kan waa film isha lagu hayo marka Meesh Babu waa filimkan soo wada filimka Meesh Babu marka waxay isku dhici doonaan filimka sidoo kale isna uu soo saari doono aktarka lagu magacaabo Allu Arjun madaragtay Allu Arjun waa ka isna wuxuu soo sheergareeyay uu taageerayaashiisa la wadaagay kaartada filimkiisa soo aadan ee magaciisu yahay Vakunta Buramula waa film uu soo wado aktarka Allu Arjun wad arkaysaan soo diyaarsay bal fiir Allu Arjun ya madaragtaan Allu Arjun filimkan uu soo wata asagna waa film isaguna ninaba aanu caadi ahay ninkan filmadiisu muhiim ninkan filmadiisu waxa weeyaan aad iyo aad bay u khatar badan sidiisuba waa film sidoo kale ay qayb ka noqonayaan baa lagu leeyahay atrishada caanka ee Buja Hedgi iyo kuwa kale badan baa filimka ku jiri doona ala ay xal filimka waxa la sheegay inuu soo bixi doono sanada 2020 labada aktar ee marka Tollywood ka xidigaha ka ah ee Meesh Babu iyo Allu Arjun baa ku tartami doona lagu leeyahay shineemooyinka Tollywoodka hay marka waa kaayo Babuna uu Meesh Babuna masaartiisa wata Allu Arjun action ka u diyaarsay wad arkaysaan nimankan uu leeyahay filmadan Tollywoodka ah iyo filmada kale ee meelaha waxa weeyaan qisooyin baa ku dheehan ayaantan qisooyin fiican baa filmada lagu arkaa sheekooyin aan caadi ahayn oo ka turjumaya nolosha dhabta ah faqrinimo iyo kuwa kale ka turjumaya Meesh iyo waan arki doonaa iyo Allu cid ku adkaata maalin filmadooda la sii deyn doono shineemooyinka Tollywoodka oo lacag ugu badan soo xareeya dhan kale aktarka caanka Dalamandra waxa la sheegay in isbitaal la dhigay laakiin 3 maalmood isbitaal ku jiray la soo saaray baa lagu leeyahay Dalamandra waa duqoobay waxaan arkay markii filimkii wiilka awowga uu yahay Karan Doll markii filimkiisu hadda dhawaan saxaafadda hadlay baan arkay isagoo aad u duqoobay xitaa meeshu ku ooyay markii kuwii warbaahintii yani televisionka color oo soo bandhigay muuqaaladiisii hor markuu dhalinyarta ahaa ka sheekeeyay wuu ilmay markuu xasuustiisii arkay asagu wuxuu u muuqday in aad u sii duqoobaya wuxuuna dhex degan yahay gurigiisa beerta ah moogtaa ninkan waa nin military uu ogyahay maartay ninkan beeraley uu iska yahay wax weeyaan gurigiisa beer baa ugu dhex taalo beerisu iska dhex degan yahay waxa la sheegay in toddobaadka isbitaal la dhigay waxaa daba socday baa leeyahay sida warku ay leeyihiin wiilkiisa Sani Doll baa la socday baa leeyahay inta badan Sani baa garab taagan odagu ka kale Bevidolku si loo arkayn hatta Sani Doll maalin wiilkiisa baa filim keenay maalintaas marka asaga saxaafadu soo hor fariistay odaga la yiraahdo Dalamandra wuxuu yiri wiilasheeda Bevidol Sani Doll waa soo dhaweysane wiilka awowga uu ahay ii soo dhaweeyo yiri dadkii Hindiga uu leeyahay filmadiisa hal loo cimaamado oo hal la soo dhaweeyo hadda waa ka waxa leeyahay isbitaal baa la dhigay xanuunadiisa inkastoo aynu aad u adkeyn baa leeyahay oo isbitaalku yaala Mumbai baa la dhigay kadibna waa laga soo saaray baa lagu leeyahay oo isaga iyo Sani Doll baan halka wada gaari baa lagu leeyahay Sani Doll marka aabihii dib ugu celi gurigiisa lagu leeyahay oo Dalamandra wuxuu doonay inuu isaga laabto gurigiisa waxaana laga saaray isbitaalka 3 maalmood ku jiray waxaana loo daaway waa la si fiican baa loo daaway haddana wuxuu ku laabtay lagu leeyahay gurigiisa beerta ahay marka aktarka caanka ah ee Dalamandra oo xog bariyahan duqnima soo galaysa Amitabh Bachchan waxaad u malaysaa xog inuu dhalinyar yahay laakiin Dalamandra duqnima sii haysa marka Dalamandra 3 maalmood isbitaal ku jiray gurigiisa lagu celi lagu leeyahay xanuuno aan xoog badnayn baa soo gaaray lagu leeyahay laakiin hadda caafimaadkiisu waa okay Katrina Kaif waxay soo bandhigtay baraha bulshada soo dhigtay sawirka filimka soo aadan Akshay Kumar ay la soo wado ee Surya Vanshi waxaana ay taageerayaasha tustay nooca filimku ku jirayo ninka lagu magacaabo Akshay Kumar
يعني magaca filimka loogu yeeri doono wuxuu noqon doonaa Veer Suryavanshi buu noqon doonaa waqad arkaysaan ninka director filimka ka ah Rohit Shetty Katrina Kaif iyo Akshay Kumar Suryavanshi waa filim aad loo sugayo oo soo wado actor-ka caanka ah ee Akshay Kumar oo Katrina ayaa sawir baraha bulshada soo gelisay magaca filimka loogu yeeri doono actor-ka weyn ee Akshay Kumar magaca filimka loogu yeeri doono Suryavanshi ba filimka riyaadaye asagu filimka waxa loogu magacaabi doonaa Veer Suryavanshi waa filim action aan caadi ahayn uu ku sameeynayo master action qiladi waa nin action badan ninka kane waxa lagu leeyahay filimkan xataa Suryavanshi ay soo wadaan Akshay Kumar iyo Katrina Kaif waxa ay taa qayb yar ku lahaan doona Ajay Devgan iyo Ranveer Singh waxa la rimaan loo Hyderabad ku duubay qaybtiisu filimka ka lahaa muuqaal yar buu ku leeyahay sidoo kale Ajay Devgan isna filimka muuqaal yar buu ku lahaanaya marka Ajay Devgan iyo Ranveer Singh ba filimkan mar la soo galay muuqaal yar lagu arkay kadibna way ka baxayaan marka labaduba actor Ajay iyo xataa Ranveer Singh filimkan soo galay muuqaal yar ku lahaan doona waxaana filimka la sheegay inuu soo bixi doono 27 bisha Maarso sanadka soo aadan ayuu soo bixi doonaayo marka waa kaayo iska jir Akshay waxa lagu duway buuci doona filimkii soo aadan action caadi ahayn buu ku sameyn doonaayo Veer Suryavanshi baa lagu tilmaami doonaayo waa filim aan caadi ahayn dhan kale filimka Saif Ali Khan dhawaan soo bixi doona waxa la sheegay in laga koobiyay filim Mareykan ah filimkaas oo lagu magacaabo Pirates of Caribbean sida uu libisanayo filimkan Saif Ali Khan waxa uu libistay lagu leeyahay actor-kii filimkaas jilayay Johnny Depp filimka oo lagu magacaabo Pirates of Caribbean ayaa ninka ku sida uu libisanay waxa marka soo baxaysa dhawaan iyadoo filimkan uu soo bixi doono October 17 uu soo bixi doono filimka Lal Captain uu wado actor-ka Saif Ali Khan Lal Captain ma filimka kan Lal Captain baa lirada 17 bishan October buu soo bixi doona laakiin intaanu soo bixin filimka waxa soo baxaysa qaabka uu yaani ku jilayo filimka yaani qaabka uu dharka u xiranayo actor-ka Saif Ali Khan inuu ka shabaho ama waad ugu koobiyay baa lagu leeyahay ninka lagu magacaabo actor-ka filimkii jilay Johnny Depp filimkii Pirates of Caribbean marka waxa soo baxay Saif Ali Khan filimkii soo aadan in uu mataqaana koobiyay baa leeyahay filimkii ninka ka u waday Mareykanka ahaa waana filim soo baxay sanadii 2003 marka waxa uu leeyahay qaabka uu u libistay ninka ka iyo Saif Ali Khan Smith weeyaan marka waxa leeyahay Saif inkastoo filimkiisa uu soo bixin wali 17 bishan soo baxayo haddana waxa leeyahay ninka baa koobiyay inta uu gobgobeynaa filmadii maanta aan ku xasuusiyay Mahesh Babu waxay noqon doontaa markii ugu horeysay uu filim ku jiray askari waana filimka la tartami doono filimku uu soo wado ninka lagu magacaabo Allu Arjun maadaama idin sheegay Allu Arjun iyo Mahesh Babu inay ku tartami doonaan shineemooyinka Tollywoodka 2020 oo filmadu hal maalin ay soo bixi doonaan isku dhici doonaan hadda ogow Mahesh Babu ogow waa markii ugu horeysay isagoo askari la arkayo inta aan gobgobeynaa maanta aflaamta hindiga sida ay nabad galiyo